qabtay guddiga ugu horeeya aad bay u mahadsan yihiin intiina ka soo qayb gashay lagu sharaftay inaad soo dhaweysaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxay isaga ficnaan lahayd maadaama shaqooyin laga yimid gaar ahaan runtii taxiga inaad iyadoo ay tahay maalin shaqo haddana inaad saacadka noogu timaadaan ood nagu soo dhaweysaan si gaara noo taabanaysa aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan iska jeclaan lahay inaan daatada iyo goobinaha iska raaxaysan warkan tirada badan oo Soomaaliya iska socdo waa lagu daalay runtii marka ciyaartana iska tumanaa finaal laakiin inaan iyada soo istaagay waxaan iska raadaway aad iyo aad u mahadsan yihiin dhammaantiin intii hadashay oo suldaamadii odayaashu ka mid ahaayeen aad baan kaga mahadnaqayaa soo dhaweyntiina iyo ducadiina iyo madaxdana maanta waa iska jecel yihiin mararka qaarkood intii entertainmentka iyo dhalinyaradii Ohio State University iyo dhaantada iyo saaxiibadii u dambeeyay goobilaha iyo saarka loo gelgelay dhammaanteed iyana aad bay u mahadsan yihiin Sara Mire iyo Halima Saadiyo aad iyo aad u mahadsantihiin Sara Mire waxaa leeyahay saaxa ha noolaato حامد عبد المسيح قبل يسقط بدنا وضياش كله ماشي كهذا بارتو كنت بيه ينعاد عبد المسيح كما سنتي دمعتي I would also like to thank the elected officials of Ohio State, particularly I thank them for their kind remarks and for their wonderful gift. I really appreciate it. And I'm eternally grateful for that. Particularly Senator Sharon Brown, Congresswoman Joyce Beatty, State Senator Charlotte Tavares, Senator Ray Miller, Kevin Boyce, and Chase Bates from the Mayor's office. aad iyo aad buu mahadsan yihiin dhammaantood waan ku faraxsanahay inaan runtii aad ku xiraataan oo waxaa weeye dabcan we're gonna learn a lot from this country waddankan wax badan ka barayna oo wanaagsan waan ka hadli doona insha allah saa horeba mar badan u idhi runtii wax badan anigu oo hadda idiin sheego oo idinku kordhinayaa ma jirto caawas halkan halba ka caddaatay waxaa ka caddaatay geed la oran jiray 4.5 xaalkeedu ma fiicna xaalkeedu aad buu xunyahay runtii waa inta xunta yaa aad baan wax badan oo sheega ma garanay runtii waxaan isku mid baan ku celcelinayna laakiin dabcan sida aad ula socotaan wararka dabcan waxaan joognaa internet HQ Facebook iyo maxaa la yidhaahdaa Viber iyo WhatsApp iyo faa'iido wada daaran oo instantaneous information baad waddanka ka helaysaan mararka qaarkood isaga warkaan daana maal baad ugu maqashaan oo waddanka aad baan ula socotaan wixii ka jira laakiin waxaan ogaaday social media laftigiisu dhibtiisu leeyahay waa seef laba aflo marna si fiican baa loo isticmaali karaa marna waa shida badan yahay oo da warkasan
يكن حنا هذا وحنا سوغار سيريا instantaneous سهل ولا سوغار سيريا marka waxaan jeclaan lahaa inta wanaaga ah aan isku raacno ka shaqeyno sida wanaagsanna aan u isticmaalno haddaan mar walba niraahno oo dhanka negative-ka mar walba aanu emphasize garno Soomaaliya marka laga hadlayo waxa weeye that mogtahay perpetuates itself waxa weeye xumaanta aan ka shaqeynay breeds mogtahay xumaan kale wadaysa marka wadankeena mararka qaarkood wax badan oo positive ah ka jira marka aan isku dhiirigelino oo niraahno dib baa ka jira wadankii saanahay waa ka fiicnaan karnaa saanahay ma istaahilo wax ka fiican baan geynaa intaas wax wanaagsan weey laakiin haddana wax badan oo wanaagsan baa wadanka jira isaga laftigeena aan sheegno si marka hadda ilmaheena halkan aan ku korinayno iyo kuwa Soomaaliya jiraba waxa weeye waa inay dadkooda maqashaa wax wanaagsan ilmihii dib mar walba lagu yiraahdo generation-keena aan ku niraahno wadankiina waa xun yahay saan weeye Soomaaliya la yiraahdo marba ka shaqeeyno burcadbadeed piracy iyo maxaa la yiraahdaa shabaab iyo sharwadayaal iyo daan ka sheekayno ayana waxa weeye ma yeelanayaan braille ay ku qoraano wadan fiican oo leeyihiin in ma ana ka sheekayna wadankeena quruxda badan xeebaheena quruxda badnaa geereeni dhaqankeeni gabdhaheena quruxda badnaa wax badan ka sheekayna la rabaa we have to say Allah about the good things of Somalia أنا waxaan qabaa Soomaaliya way fiican tahay waxyaabo yar bay leedahay laakiin Soomaaliya dadka Soomaaliya markii la eego dhibaatada aan soo marnay sida 10 sano ay ku jireen markii la eego waxaan isleeyahay ummad wanaagsan oo dhabar adag oo resilient ah oo yani wax badan lagu bogaadiyo wayaan leeyahay dabcan nacasna ma naqaado dawladdeena iska duminay annagu waan ka fakirin marna waxaan ku bedelanay markasta oo system dumaana saan hore u sheegay waxa weeye si dib loogu abuuro systemkaas u soo laabtaa iska dhib badan tahay it's not easy in institution-kaasi dabcan annaga Soomaalideenu waxa weeye dawladnimadu marna kuma timaado heshiis iyo gorgortan iyo consensus dawladda kuma dhisanto innaga oo pastoral society oo geeljiraa نور بقبيل بالباو بادية صدقية أيها قال الموتي بلا يوم بحوجة المعنى كتير تهوية معنا البرتقال البرجة كوي جلندي يلاقي بمارك أو سو حيروا ويجرين أو some sort of سلفول منها قارقود لكن أنت بالضبط كان روحان وعند دسكا جلشرة طبعا مركا حوجة باينين أجنبية يجا سوقها يكيني يجا مركز واحد أبوران structure دولة النمو يدي ما نحلي طبعا يا في هاي إلا بدله وحلو كرديو سومالي كاركتر هو يلو دولة دولة النمو أنك تينا أو استهلوا ونحسن أنو كهلو ما ندعينا أنت يا ريال نحلي إيانو سكد مني مركا ما سهلنا أدوينا المرة عضو it never happens in the history of nations إلا يرى هذا الدولة بحكي معنا هشيس برشو وبقول كبر حسكوكا ما يمارس ويجي مركب حلايا هذا كنت مرة ماشي عن مكان نبيت يصير عن النغني سان وقفني وحسلايا هي واقعنا ونعكسنا دجال حنبان صومري حتى إيفان سيفل وورك اللي مركها يكتب دي بدن بوكيناي طبعا دول نبدا دونتي waxa dhuntay aaminaadii isjacaylkii Soomaalinimada dakhal weyn u gaaray laakiin haddana markaad eegto sida la isu laayo oo wixii ka dhacay Rwanda iyo oo yani dhowr bilood gudahood 1 milyan oo qof wabiga la raacsiinay ma dhicin Soomaalidu waa dad isoo dhaqay isku xiran wax badan wadaaga wax badan baa dhaqankeena loo diiday wax badan baa diintooda loo diiday
marka ma xumin ya wadanka hadda aad joogtaan wala socotaan oo 6 sano civil war oo xun buu soo maray ya intaas milyan oo qof ay ku dhimatay wala maraya waa process amar nasiib daro weeyeen lagu dhacdo marno laakiin it happened marka haday dhacdayna waa inaan oran maxay u dhacday maxay u socotaan maxay u yeeshay laakiin waxa weeye next ya aan ka gudubno soo gudubnaa ya how can we best move soo soconayna wad bayna asleeya marka أنا وطنكي كائبت بديسنا وكور قبائل كوفرتنا واتجاي اسمعي يا حمري بدنا وكائبت وحنا هو وطنك كمان ترى أنا هاي شباب يشدد يسا ترى أسبوع إنه 4.5 وقوي ما عندنا لكن دبتوا وين تعسي هاي نقول حمد تعسي كنتي وأنا دجال ساعة عن قبض أنا كان وكالة الدولة دبتي سكالي وحكي لي وكتشر وحي هاي أبعد gaar ahaan halkan ka yimid Puntland runtii abaar gobolada waxa uu kala daraadeene meelo fiican way jiraan oo isla ka jiro sida mudug iyo cayn iyo laakiin dhulka intiisa kale xogax mooda abaartaasi waa abaar runtii Soomaaliya markaad eegtaba abaartaasi waxa weeye waxay u badan tahay waa wax man made away of course ilaaha baa keenay laakiin marka la eego environmental degradation kan ugu dhacay sida loo yani bi'ada loogu ciyaaray way iska ahaanaysaa Soomaaliya waxa jiri wariga wala socotaan oo waxa la yiraahdo abaar cycle kala waho laakiin waagi hore waxay ahaan jirtay every 10 years bay imaan jirtay waa abaartii baastaan ilaa 74tii xal rajay daba dheer 87 93 laakiin hadda waxaan moodaa every year or every other year way imaanaysaa sababtoo ah environment-ka waa lagu dhigaa runtii waxyaalaha intii aan prime minister-ka ahaa aan aad marka waxa ka jirtay abaartii baan wada garanaysaa Soomaaliya majaacada xumeed baa ka jirtay oo ahayd the war since 60 years runtii arrinta waqtigiisu isla markii uu la booday sababtoo ah soo ujeedo kale u lahaa dhuxusha marka shabaab Kismaayo haystay Kismaayo laga dhoofin jiray marka isagu uu diidanaa dhaqaalaha dhuxusha ee galaya shabaab laakiin anagu taas uma jeeday abaarta iyo environment xumada arrintaas ay leedahay marka labadii interest-kayga waa xoogaa iswaafaqay dawas October aad baan uga shaqeynay February 2002 resolution la soo saaray 2036 hadda Soomaaliya wali waa la dhoofiyay dhuxusha laakiin waa mamnuuc adduunka yani waa violation of Security Council resolution weeye waxaa la sameeyay marka waxa weeye mission-kaas ah in aan ku dadaalo environment sababtoo waxaan ogahay haddii sida ay hadda tahay wax ku socdaan oo runtii aan arrintaas laga hortagin dabcan xooluhu dhamaanayaan haddii xooluhu dhamaadaan dadka ku xiga runtii marka inta anaga environment-ku waa iswada raaci lahayn waa inaan arrintaas ka dadaalaa oo runtii shaqo badan laga qabtaa Puntland anagu runtii aad baan arrintaasi hal badan uga haynaa waan rajaynaynaa in shaqo fiican ka qabano halan baan ii sheegayaa horta Puntland maxay rabtaa Puntland hal waxay rabtaa Puntland waxay rabtaa Soomaaliya oo mid ah Soomaaliya oo federaal ah Soomaaliya oo dimuqraadi ah Soomaaliya oo cadaalad Puntland Soomaaliya hadii uu ka jirto way saxaysaa laakiin intay gees soo buurto Soomaaliya ka baxan ma oranayso Puntland aniga taladayda hadii la yiraahdo waxa ku soo harayso Soomaalnimo Puntland will be the last Soomaalnimo ku soo haray insha Allah khudbadayda ku jirtay Toronto waxaan isleeyahay dalkan waxa uu leeyahay Soomaaliya hadday hesho the right leader oo soo baxa the right time the right leaders
oo soo baxa the right time waxaan isleeyahay wax badan bay bedel Soomaaliya ka bedeli kartaa leadershipku matters a lot waxa weeye hogaamintu wax badan bay bedeshaa adduunka iskama lihiyo waa wax anigu aan research-kay markaa macalinka ka shaqayn jiray ahay waxa weeye mararka qaarkood dabcan dimuqraasiyadda iyo dictatorshipku waxa la yiraahdaa wadanka wax ma ka bedelaa horumarka dalka sometimes it doesn't matter inaad tahay democratic iyo inaad tahay dictator what matters waxa weeye waa institutions in place waxa weeye haykalka dowladnimo ee jira ayaa wax bedeli kara example baan siinaya waxaad arag kartaan dimuqraasiyad badan oo poor ah oo poorly run ah waxaa jiri kara dictatorships horumar gaara oo si fiican loo leergareeyo laba dictatorship waa qiyaasi kartaanoo waxaa qiyaastaan Lee Kuan Yew of Singapore iyo Mobutu of Zaire iyo Congo two leaders two dictatorships midna waxa weeye mid ah development minded oo ah wadanka inuu horumaro Singapore oo dhuxul madow kaligeed ah ayaa maanta waxay tahay wadamada adduunka ugu qanisan waxay heshay right leadership waxay heshay right institutions iyo system wanaagsan ma aha Lee Kuan Yew muddo xukumay haddana wiilkiisii baa jooga marka for the people of Singapore kala yiraahdo waxa iyagu waxay horumar bay gaareen iyagoo yani wax natural resource ay leeyahay si jirin wadankii Afrika ugu qanisan adduunka oo ugu qanisan kamid ah ugu waaweyn oo Zaire waa aragteeno sida uu yahay marka qofka leaderka ah wax badan ayuu bedeli karaa waxaa leeyahay marka leadershipkaas aan u baahanahay inuu Soomaaliya ay hesho dhan walbaaba dabcan kabacdina waxaan rajaynayaa inay wax badan iska bedeli doonaan wadanka aad joogtaan wadda Mareykanka laftigiisa iskama imaan waxa la yiraahdo greatness of America iskama imaanine wax badan waxa ay ku dhisnay oo sabab u ahaa founding fathers dadkii wadankan markii uu dowladnimada noqonayay yimid oo maqashaan ama qaarkood waxay lahaayeen wala slave owners behind Jefferson oo kale laakiin haddana waxa ka soo baxay Abraham Lincoln oo isla markaa diiday in waxaan ay soo socdaan oo America ay qaran noqoto afnaa noqoto half free iyo half slaves diiday marka dadkii soo maray wadanka marka Hamilton iyo Madison iyo Jefferson iyo Washington lahaa yani right moment waqtigaasi ayay right leaders ahayn soo baxay markaas waxay u sameeyeen wadankan base iyo foundation ah constitution bill of rights maaragtay the federalist papers oo wadankan hadda anagu Soomaaliya maanta waxaan isku haysanaa federaal oo ka hadli doona laakiin systemka ay doorteen hatta federalismka laftigiisu wuxuu ku dhisan yahay aragti markii ka doodayeen dad akhridaan federalist paperska markii ka doodayeen Alexander Hamilton iyo John Jay iyo James Madison xashee isu dirdirayeen dad maanta akhridaan waxaad ogaanaysaa ayadoo la qoro 200 sano ka hor inay maanta oo kale in la qoray amreys waa far sightedness marka wali masaayahaas qofkaas aan u baahnayn oo sax ahay ama leadership sax ahay Soomaaliya kama soo bixin laakiin asalaaya inta kale dadku waa u bisliyihiin dowladnimo u bisliyihiin wanaag bay u bisliyihiin horumar bay u bisliyihiin why because qofka Soomaaliga ahi meel kastuu maanta joogo they all want the same thing hal wax bay rabaan dhammaantood isku wax bay rabaan qofka Soomaaliya ama ha joogo bari ama bog ha joogo waxay rabaan nabadgelyo waxay rabaan isku wanaagsan waxay rabaan caafimaad iyo isbitaallo wanaagsan waxay rabaan biyo macaan oo cabaan waxay rabaan ilmahooda inay mustaqbal u yeeshaan wax kala duwan ma rabno يعني dadka leaderska ahi waa laga yaabaa iyagu yani
haddaan isticmaal kelmada ingiriiska laga ahaada ayagu yani parochial interest-kooda waxyaaba ayagu gaar u ah ayagoo raba awgood in dadka wax kala duwan in loo sheeg waa dhici karta laakiin baahida Soomaaliya ka jirta waa dasay waa isku mid waxaan rabaa marka idinka laftigiina hadda annagu election-kii aan ka hadlay 2016 waa sax oo idinka ka hadlayeen hadda laftigiina dhib baa qabtaan 2016 kii ma sahlana ya markaan Donald Trump wuxuu ku hadlayay maqlo waxaan isleeyahay marka qaarkood ismada America meesha waxaan ka hadlayaa America ma laakiin anigu waxaan isleeyahay waa ku kalsoonahay dadka Mareykanka judgment-kooda ayay trustan waa ku kalsoonahay waxaan aaminsanahay inaysan Donald Trump dooranay wax la mid laakiin Donald Trump wadankan markaan imaanayay waxaan isleeyahay marka qaarkood waxaa lagu ciyaaray the innocence of America waa lagu ciyaaray oo waxa ku ciyaaray oo waxa aad aragtay ugu oranayaa kuwa inaga magaceena iyo diinteena isticmaalaya ayaa gaarsiiyay inuu soo baxo Donald Trump ma soo baxeen environment-ku ka soo baxay waxa dhaliyayna waxaan ku leenahay kuwa inaga diinteena sheeganaya iyo ba keenay inuu soo hadlayo okay inaga laftigeed waxa la rabaa maanta ku hadlayee sicitaan badan baa dhankina looga baahan yahay haddaan islaamka nahay warowna inaysan islaam matarin magac islaamna aysan ku hadli karin laakiin obviously inagana la ka raba inaan dadka barno that this is not Islam inaysan islaam ahayn saxna ahayn waxa ay wadaan marka Soomaaliya rajo fiican bay leedahay insha Allah waan rajaynayaa inay in isbedel yimaado shaqada sanay qaadatay laakiin markii la eego meesha ka nimid oo ahayd civil war-kii iscayrsadkii dawladda duntay warlordskii maaragtay wixii ka dambeeyay dawladii xukuumad gaarka ah dawladda hadda jirto oo dawlad full governance haysato oo la aqoonsan yahay oo maanta aan ka hadlayno election models waxa u dhaxeeya wad garan kartaa meeshaan joognay iyo maanta waxaan ka hadlaynaa qaabka la soo dooran lahaa 4.5 من أصول دورنا بس دق من أدنى دبيت صحوي يا بركة وأنا نقولنا optimistic يا about the future أنا نقولنا على كهرباء أو أنو أنت دبنا أنا قدرنا دبيت بالسعودية بركة ومسلك كوها يعني waxaa jira dad badan oo dadna waxay advocate garanayaan federalism dad badanina si dadban iyo si qayaxan waxay uga soo jeedaan federalism Puntland weligeed waxay advocate garanaysaa federalism waxaan isleeyahay for the right reasons maxaa federalism ku nataraya aniga Cabdullaahi kan ka fakaro كفكر أمريكا think about America itself what they have كل شيء أنا مركز أنا سنما لكن لقطه حوي وبول سيستم سوتر حوي دولة لماذا هذا الدولة government وأنت تيجا هو حيث monopoly on violence دولة أيها وحيود هذا هنا ذكر اللي بعتيسو أنا وحرته inay dhigto waa la siiyay bawarka waa loo ogolaaday cid kaliya oo leh weeyay marka waxa la rabaa hadii bawarka la siiyay in bawarkaasi aan dadka lagu abuse garay oo dadka aan lagu dhimin magaca dawladnimada marka waxa la yiraahdaa hal qaybiyo dawladnimada oo si horizontal loo qaybiyo wala socotaan waxa leenahay legislative executive iyo judicial ومحكمته يعدالتي executive branch كفرنتي إيش عدة جنت كونغرس كان
marka powerka ayaa waxa rabaa in la separate gareeyo ka bacdina la sameeyo check and balance inay isayaan haddana waxa la yiri taas kaliya is not good enough powerka dowladnimadana si vertical ah in loo separate gareeyo marka waxaan haysanaa the federal the state iyo local maxaa intaas oo dhan loo dileeyahay waxaa loo dileeyahay in awoodda dowladnimadu aysan ku ururin gacanta qof shakhsi ah reer gobol qof baalraba si markaas loo ilaaliyo the sovereignty of the individual xorriyadda qofka shakhsiga in la ilaaliyo iyada wax walba ka weyn haddii marka loo fahmo federalismka sida uu yahay oo cilmiga ahi cid soo haray diidaysaa ma jirto waa laga doodaay waxaa leeyahay okay laakiin annagu federalismka aan qaadanay waa kalaan federalism waa federalism oo reerood not really Soomaalidu meel baa wada deganta haddiise ka soo qaad waddankan dariskana Ethiopia waxay qaateen federal system laakiin ku dhashay nationalities qowmiyado Tigrayga meesha jooga Oromo meesha joogta Soomaalidu kilkale haysata iyaga isxukuma haddana Ethiopia maanta waa one of the fastest growing countries in the world wadamada adduunka maanta ugu horumarka badan maanta dilaya si u socoto Ethiopia waa ku heshiin karnaa marka annagu Soomaaliya oo wada adeer iyo abti iyo suwa ayagaas intaasoo nationality oo kala duwan ah ayaa systemkaas ku heshiiyay oo ay ku midaysan yihiin oo ay dowlad ku yihiin ay ku xog badanayaan innagoo meelaheena kala joogno haddaan doono xataa qabiiladan kala ahaanay haddaan systemkaa wanaagsan siduu yahay nagu heshiino waxaan is leeyahay Soomaaliya waxay leedahay future ka wanaagsan kan Ethiopia is leeyahay marka jacayl gaar ah Puntland u qabtay federalism iyo wax gaar ah ku helaysa ma jirtee waxaan rabnaa systemka wanaagsan systemka unitary-ga state-ka oo hore waddanka u jiray dabcan ku aanan faa'iidin marka at least kan aan try garayno haddii dood kama jirtaba oo waxa weeye federalismka Soomaaliya waa the law of the land waddankii waxa weeye kada dood iyo muran kama jiro laakiin dadka la rabaa inay siday tahay inta u fahmaan ay u qaataan ayaan rajaynayaa dirayna maxaa Puntland marka ay ku diiday 4.5 aan sharxo number 1 sida oo martarku uga hadlayay odayaasha kale waa system aan sax ahayn waa system aan la jaan qaadi karinin dowladnimo wanaag good governance-ka Soomaalidu istaasho ay rabto iyo 4.5 ma jaan qaadi karo waxaan rabnaa in systemku yahay system ku dhisan matalaad shacbi oo dhab ah real representation sideedana hadda مثلا saaxiibada ay meesha joogo oo ajnabiga kulligood hadda ma matalaan yani qabiil iyo gobol iyo group gaar ah oo hay matalaan Soomaa counties iyo districts bay matalaan alu kala badnaan kara district waxa badnaan kara African Americans mid kala waxa badnaan kara Italian Americans laakiin at the end qofku wuxuu matalaa degmo matalaa qof markuu degmo ka yimaado uu matalo qof accountable weeye cid waa accountable weeye degmadii waxa laga rabaa inuu school keeno degmada waxa laga rabaa inuu establiso degmada waxa rabaa jid inuu keeno biyo inuu keeno wala xisaabtamaya laakiin qofku markuu cid accountable ahayn oo ka qabiilka soo qoro accountable yahay dowladnimo ma jirto marka waxaan rabnaa aan leenahay waxaan geynaa waxaan ka wanaagsan waxaan rabnaa matalaad shacbi dhaba in dadku ay yeeshaan ayaan raadinaynaa
secondly waxaa leeyahay dadku diyaar uma aha goboladii ma horeysna doodo badan baa la gelinaya dadka lama tirin dad necessary waxaa soo dhan marka la yiraahdo war degme hebla saddex qof soo doorta hadii la yiraahdo is no brainer shida kuma jirto waa wax sahlan way la soo sameyn karaa sideedana waxaa laga hadlaa dad waxa la yiraahdaa okay hadii la yiraahdo deegaan hal aado dad baan deegaan lahayn qof aan deegaan lahayn ma jiro qof aan degmo ka imaan baa jira qof dayax degan baa jira qof badan mukay marka degmadaada hadaan kalsooni ku qabin laga soo dooran karo then that's your problem yeah وانا سيستم انا وصامر يعني سيستم الصوت دورته او يعني 1960 1969 ولا صوت دورنجري برلمان ولا صوت دورنجري سوما ولما dadku su'aalaha ay heer waxay gaareen runtii ay difficult tahay naga shifti yarsa ugu laabano ya in umar dheere oo absama laga soo doortay halkiisa maanta ma dhici karta يعني nin gabooya halkiisa laga soo doorto in la dana bulbul laga soo doorto waa dib badan tahay maanta laakiin waa soo marnay in la soo doorto degmo lagu soo doorto qofku uu matalaad yeesho haddaanu samayn jirin 6 sano ka hor we can do it today maanta ma samayn karo waxaa laga hadlaa marka gaalada markay noo yimaadaan intaa waxay nagala hadlo waxay yiraahdaan minority and women laakiin waxa ay bridge gareynayaan noo sheegayaan laftigooda they don't practice ya waxaan wadaanagu inaan nahay maxaa la yiraahdaa ya tijaabo feere laakiin anaga ogol dumarka iyaga waxaan dhaqanka iyaga diinteena xuquuq aysan siin gaalma siin karo runta taa wey waxaan rabtay gaalada oo magaca qaadanaya baasnamka ninkood maxay u qaataa gabadha ma loo golay inay diinta islaamka qaadato ninka magaciisa diinteena ma ogolo qof xora weeye magaceeda leedahay sababtoo ah waqtigii hore qofka dumarka ah waxay ay property of men xoriisa ka mid ah isaga la hayn jiray taas waa meesha ku aada taas weeye historyga barataan baan ka rabaa ماما عشان على the rule of thumb yeah rule of thumb هي معليش rule of thumb ما تقانا حقوقي waxay ahayd qofka dumarka xaaskaaga ah waa dili kartaa as long as you damage uso ka madin suuqa diintan waxa soo bashaa laakiin laga yaabaa markaa qof dhaqankeedu inuu xuquuq diintu u ogashahay qofka dumarka inay in dadkeenu aysan diintu ugu bisnaa ugu dhaqan waa dhici karta mideeda kale ana halkaa waxaan imi 86 markaan imaanayay wadankan Mareykanka boqolka sanatar hadda waa badan yihiin boqolka sanatar waxaa ku jirtay hal gabar magaranaysa qoftaas waxaa la oran jiray Nancy Kasamba from Kansas iyadana waxay ahayd dowlad senator bay ku jirtay boqolkaas gabadhaas ay weelisay iyadana waxa dhalay loo jiray Alf London waan garanaysaa oo caan dhalay haas ku soo gashay marka 86 Mareykan hadii senatorkii hal ay ku jirtay boqolkii anaga waxay leeyihiin boqolka sodon gabdhaha laga dhigo waa oggol laha saddex diidimi like yeah أنا of course يعني 2016
2012 أنا أقول الدستور بقول مصدق إني قاطع لكن وحنا رأينا الدستور كريمو ليش هي إن الدستور كريمو حوالي حبوا كرسي ولا قال إنه كان ولا ياش حتى مركز أنا بدلان بروبوزال بيكت ولا سقطان وحنا نري ذاك minority جا والله والله ضربيه أو يعني هذا وحيلين صدق يكوز الحلبان وحنا صدق يكودوا ذا يا والله يحلل قهوة نرى المدة على قشة خلينا وحي قهر الدقادي هذا يسوع عند مانتو بانكي مون هو يرتاح عدة أنا هو يرتاح على يا كوفون بنتي والله سبحانه وتعالى حان كقرن نقول الأورنجر الناشونال كونسلتيتيف فورم وضتشي سيدا الله قبتي ميل الله الصومالي بجرد لحد دقمو بلان أيام ضد السوقي والله سبحانه وتعالى وحلا يريد هلا قبت على هذا يقروي يكسبايو يبيدو بسوتشينية من أجنبية مركب بلنا نقرأ وكويت بلنا نقرأ ما حنا مركب بلنا على قبط حير هذين إذا كان جدال ما كلا كقبنا سلا كان نقول العقد واحد بحين نقرأ وكليه وحنا العقد ما هيست أما قاعد كي يسوق كان سنين لح دقمان قبنا قروي قال كعيو قهدو بوساسو برن يتكرر ولا سقطان تبيذا كدعوته dadka doodaanay si xor ah ma oran wallahi na oran 4.5 baan rabnaa doodro inaan ma oranno dadka xor weey waxaan idin xor baa tihiin hadla hadii qaar gudaha u jira 4.5 sheega laakiin all in all waxay ka soo baxay waxay noqotay dadka Puntland inay cod dheer ku yiraahdeen ma rabno 4.5 أنا مركب سوية ده وحي أهيدات كي حرلي عد قاضي منطقة إنجي نانجي مدرشكي مدرشي بانجي حين يقول لنا صاري ربطة ماذا قام قلبه ولا قام ماذا قام قلبه ما بوحي هذين فوق وانتفاق مرة من الدعوانا ليش على صعوبتي أنت أصدق المدرك كي حرلي عد قاضي اللي يراهدو حوالك سوق عادم بيه أقصر اللي أقصده ما أقبلك أنا وحكده والمجيك مركا as a president of Puntland وأنا ضدك decision كودا يمسير كودا يرهبتان كودا وأنا أنا أقبله I have to respect that decision بدأ صدحان هشيس بهر لو قال قروا 1 وقروا 2 ده
akhridaan gaar ahaan garowe 1 December 2011 waxaa ku qoran in 4.5 ay u dambayso doorashada 2012 waxaa ku qoran intaa kaliya maaha inaan baarlamaanka Soomaaliya uusan dejin karin sharci reinstate gareeya 4.5 dib u soo celiya waxaa ku qoran in haddii xataa la waayo 1 person 1 vote haddaa xataa taa la waayo in mar walba la aado constituency oo aan lagu dooran karinin 4.5 mar dambe wax saasay u qoran tahay really internet ku jirtaa garowe heshiiskaasi dowladda saxiixday ninka hadda jooga Michael Keaton kii ka horeeyay Mahiga saxiixay oo isaga boostigiisa jooga أنا برامج البنا مركز أنا صحيحين شو شريف مدحوينات صحيحين شريف حسن كهذا فورم تفك الدوديو الدوديو برلمان بوها مركز مو صحيح شريف حسن هشيسكو كونتراكت سو كونتراكت هشيس وي وأنا سويها لوفرية هدي مركز كان فورم اللي جروا ون يشيس كي أهل الديرو كان ما أنت صحيح إنه سكر سنو قال كمان ما jirto marka heshiisku inuu binding yahay Mareykanka waddanka aad joogtaan inuu dhaqaalaha dhiga jiray laba wax baa muhiim ah bal ilaali economicska two things are important the protection of the property rights and the enforcement of contracts yeah so waxaan example baan siinayaa credit card leeyahay Soomaa credit card-da ma qofku yaqaan baa jira kaluu siinayo application buuxisa Soomaa application ka buuxinayo Cabdiwali ka yimid budumutiga cilasaar ayaa ninka yaqaanaa joogaa ninka gaalka oo jooga niyo miyo American Express miyo yaqaanaa maya xasuuqa ay xiraya application ka buuxinaysid you assign a contract hadda lacagta bixiyada maxaa dhacaya someone else enforces the contract waxa lagu dirayaa collection credit bureau adig kuma yaqaanin laakiin waxa rabaa inay enforce gareeyaan oo ay yani ilaaliyaan heshiiska ka dhaxeeya adiga American Express adduunku ku shaqeeyaa waa contracts waa heshiis waan bixinayay marka heshiisku مدة أفراد 4.5 بدنا كلمة واحد جدا 4.5 صور نبات جدا ما أنت وحرب وكلية 4.5 بين ذي شيء قبلي وحنلاقي رهب البعد جدا رهب البعربة رهب بيوبا ديسا رهب بيويا رهنسا حكي وجهه نين سياسية أو دلة ليه سبوة أيام 4.5 أروح لورنيا بلدان باربت قلب دود بديدة بلدان باربت كفر قلبي بديدة حكم الجيران اضرب 4.5 مجرته وإحنا هذه كرماء 4.5 سان شيء هدي أنا أوجهي 4.5 مثل حد منعكسن ودن الصومالية اللي هو جاري هدانا وجهي أما رفتي جوا يلا لكن ما شيء هو جاري ترد البيسة وحصلها هي 4.5 السوق اللي يحدى ومرمرسيو ملوية هي ومرمرسيو الغدة بوريو فريد كده عيب لو كل اللبية طبعا دولة بعمل السنة دولة أصلا ما نيت بيلحي ده أخذ ما نيت الدولة داس دولة نقدر بدشوي ما نيت كده محوها وضن كإن الحرية أنت حرتي شغلة جسار إن الحسيليو إن دولة جولات كلا دسو إن دستوك أفتلو أنسحيو إن دت كلا تريو كبعدنا 1 بيرسون 1 فوت أفضل سنة لوجار هل حبك مفهوم someone must be accountable marka qof inuu ka jawaabo feer yarkaas
سمك الله قري قال لي easy way out حول ما قبل لو كن يلبتوا ماشي ما تاجرنا وياك مسؤول كم أنا كا هذا اللي أنا شغال صنع قبتي وقوي الصومعة that's your problem مركا فحنا مركا إن manage grade no failure we are يعني by using 4.5 we are managing the failure سحنا ما مركا ninka failure-kiisa problemkiisa anaga dib loogu soo celiyo ma yeelin lama aqbali karo aye haddii la bariyo bariyada waxaan ka oranaa dhib malaha okay intaas aan la baxo arrimaha Soomaaliya waxaa la yiraahdaa waa maasanta walaasha waxaa la yiri you have to think globally but you have to act locally marka Soomaaliya ka soo degno hadda Buntland Buntland alxamdulillah waa fiican tahay warka idinka wada waxa weeye Buntland is safe and secure wax shidaa ka jira ma jira nabadgelyadu waa wanaagsan tahay dadkii tagay waa tageen meesha doontaa maraysa meesha doontaa واركن برامج السفدي يهراي عبد الله الشيخ محمد يو علي محمد جدي يو وانت قال كعي كسر درايف قريلا بوس أسين واركن سوما يا الحمد لله وحيل إله لو ما هنغوي يا ضربنا وكلا سمايا هيسنين لا يجنا هوسها له أصلي إنك الإله أنو بركة إن شاء الله أنا كنت لي مدة الله تجعلنا إنما كشباب وبورها سمرة وما يستريا qaarkoodna hadda ay isu bedeleen daacishba oo ay kala baxeen laakiin waxaan leeyahay dagaalkaasi Buntland ku guuleysatay meel fiican buu marayaa waxaan rajaynayaa in inta u dambaysan iska soo afjarato shidadan bana aysan ka dhicin Buntland ilaahay muddo waxaan wadnay ku cilmiyo waa intii badan baa laga maqasheen waxaan wadnay in dawladnimada la saxo Buntland oo reforms aan soo bilno reformskaas dhamaantood ama ha noqdo kii shaqaalaha ama ha noqdo kii nabadgelyada iyo security sector-ka ama ha noqdo kii maamulka dhaqaalaha public finance management-ka ama ha noqdo kii cadaaladda afartu meel fiican bay marayaan dabcan institutionska in la saxo reform gareeyo waa ongoing process horay waxba u jiray annagu reform baan samaynaynaa dabcan qofka naga dambeeyana wax ku sii daro ilaa aan helo the right institutions sababtoo waxa weeye progresska iyo horumarku kama soo haro institutionka aad leedahay governance is all about institutions dowladnimadu kama soo harto institutionka aad leedahay haykal fiican bay Buntland rabtaa waddadeeda waa haynaa waan helaynaa insha Allah waxa ku xiga oo badan naga maqashaan waxa weeye kaabayaasha dhaqaalaha waxa jirta wax la yiraahdo Buntland ka cusub ma maqasheen the new Buntland waa Buntland qurux badan oo leh aeroportooyin tiro badan dekado jidad network isku xiran Premier waa dhab weeye that's the new Buntland arabno sababtoo waxa weeye haddii la rabo waddan inuu isbedelo wejigiisu in la bedelo wejiguna waxa weeye waa infrastructure waa kaabayaasha dhaqaalaha qofku haddii uusan lahayn meel uu ka soo dego jid fiican uu qaado
dekadu wax ka dhoofsado cidna ku imaan mayso marka si loo bedelo dalka oo Puntland isu bedesho waa in kaabayaasha dhaqaale isbedelaan wax fiican baa ka qabsoomay jidadka waa noo socdaan airportka waa noo socdaan dekadihii waa socdaan kulli waa information ka waa haysan Soomaa inaan ku cilmi baahniyo ya sababti naftana maqashad ku cilmi waa daawateen airportka qaar waa la furay qaar waa dhismayaan dekadu waa socota qalabkeedii jeedka qalabkoodu waa yimaadeen kulli waa la ka daawataan iyo internetyada waxa ay kaga faa'iideysan lahaayeen dhulka qaniga haduu fadhiyaan يعني يقنس Soomaaliya markii la natural resources cid baan yaqanisana anaga Soomaaliya waxay leedahay 9 milyan oo hektar oo arab land dhul beereed waxay leedahay 3,300 oo kilomitir oo badan oo the richest marine resource in the world Soomaaliya waxay leedahay the largest and the highest per capita livestock in the world Soomaaliya shidal beereed macdan bay leedahay haddana waxa soo haydiraya soo haysan waa faqrinimo weey waxaan baahnay marka aqligii iyo farsamadii aan yaani waxaas qanigaas aan haysano wax dhib badanna ma Dubai soo way ka doonteen koodi desert maanta soo tawaartay waa aqliyad weey fikir weey waxa dhib badan ma ina la nimaan waa la imaanayna waxaan rabaa oo kale inaan ka hadlo arrinta ah democratization Puntland oo la weydiiyo mar walba xagee maraya Puntland waa la socota dhawaan waxaan magacaabnay guddigii doorashada election commission sharcigii doorashada xisbiyada sharcigii doorashada election loogi waa baas garan golaha wasiirada baarlamaankana way martay waxyaabihii muhiimka u ahaa ugu horeysay golayaashii deegaanka ee degmooyinkana kulli waa soo dhisnay waxyar mooyaan waxaan rajaynaynaa insha Allah dhawaan inaan bilowno civic education-kii dadkii in la baro aqoon loo agaran Soomaha dadkii in lagala hadlo civic education-kii in la sameeyo voter registration-kii in sanadkan dhamaadkiisa December this year in Puntland ay ka dhacdo doorashadii ahayd golayaasha deegaanka municipal election diilahayaa kabacdina waxa ku xiga ultimately waxa weeye January 8 2019 inay ka dhacdo Puntland doorasho ah hal qof inay ka dhacdo insha Allah waxaa badan baa wakiilka ka hadlay waqti u dharaanaya ugu dambeyntii waxa ugu horeeya waxa weeye marka idanka mishinka muxuu ahaa imid Mareykan inaan kaga sheekeeyo waxaan qabanay waa aragteen wixii wadanka la socotaan annagu waxaan leenahay shorkamidkayga yani waxaan leenahay marka qaarkood ciladaha iyaga waa leenahay mana diidan laakiin idinna wax badan baa idinka rabaa yasbaradaati أنا إذا كملت بنا يهركي ودياس بردوتي مرة إذا الله الله يو وحنا هاي أمك friends تنكوات وحويه وكل عليا هرنا أوئري وحويه بكرة وحلي هذا دون نوها ذلك ترى محترني شده أكبرين يا أنت واحد مغلق وش ده إبراهيم شغال تورفر ونستوى الموضوع مارك تينيسن كون نورين سوماليسن وربكهاي مدة لما بروح وياه أنا يعني عرفتي أنا بيني رجلنا سعاوة سيدا وحرنتي هي لكن ما فيش ريسك نيو تناك ستيج كحوي إذا كنا عند بطان إننا يجوا يرني مركز ضماني معنا أنا وين معنا سنة ترجع معي كونغرس من جد أنا وين معنا هذا من كثير هاي ودك وايدين بعية هاي كسر لعبته المهنة كنا لا كروزرز بدن بعيالا حبها يدقين هنا ده ولا هذا good memory إن شاء الله ده هاي ده كنشوف عاروا المهنة كنتان ودك هاي كفانا
aan la oranin cunugani waxa weeye cunug madow afrikaan oo muslim ah Mareykan ku nool ee uu yahay Soomaaliya oo landheera barandheera ugu dambeyntii waxa weeye waan matashaan bi gudaan baasho taris oo wadanka ku nooshiin ya sharaftiisa sharciyadiisa hal ilaaliyo aad iyo aad u mahadsantiin